بسم الله الرحمن الرحيم قدومي وما سنتهاي مدنيا المروين xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan barnayn maadaama waqtigu kooban yahay kow general principles ama mabaadi'da caamka waxa weeye wixii ka soo horjeeda dastuurka ku meel gaarka ah oo aan hadda ku dhaqanno waa invalid ma lagu xusi karo lagumana soo dari karo in sharciyeedka taas caam ha ahaato waxaa ka mid ah Soomaaliya taariifka Soomaaliya ka mid ah wixii 60kii ka horeeyana Soomaali waxa ahaa ninkii u dhashay ama gabadhii u dhalata waagaynu muxuu ahaa dawladda inaan lahayn ama isticmaaro jooga ama reer baadiye aan ahaane wixii 60kii ka dameeyay iyo gobonnimadana Soomaali waa cayinay marka asaga lagama hadli karo wixii ka la mid ah oo dastuurka ku jira waa la mid waagii dastuurkaani ku meel gaar ka baxo oo afti loo qaado oo shacbiga Soomaaliyeed ay muxuu ahaayay to ansixiyaan baa markaas wixii la rabo la dhihi karaa marka aanu ku noqon maayo taas waxa soo haray arrinta ku saabsan heshiiska siyaasiga waa la mid haddii heshiis siyaasi ah la galo waa in lagu socdaa مثلا shantii bisha June 2018 waxa lagu heshiiyay goboladu ay ku heshiiyeen in muxuu ahaayay to uu noqdo qaabka wax loo dooranayaa waxa la yiraahdo single constituency proportional representation iyo muxuu ahaayay to hadii la ku run yahay closed list saddexda qodob heshiiska waa la hayaa waa qoran yahay sharciga iyo siyaasadda weyn oo waqti haddaan wax ku heshiino siyaasiyan oo aan sharci dhigana laakiin xeer siyaasadeed uu yahay waayo waxa dhibaatadu ka imanaysaa haddii inta siyaasad lagu heshiiyo anugu aan xeer dhigto oo xadido wixii aan ku heshiinay hadda markaas waxa way carradu waa quruntay waa dagaal iyo kala tag marka mar walba sharciga waxa ka horeeya heshiiska siyaasadeed marka ka bacdi uu la heshiiyo hadii la rabo loo rogo sharci iyadoo la isku waafaqsan yahay taasina waa halka si gaar ah markii aan uga hadlo qodobka 11aad faqradiisa labaad ka tag waa mid ayada ah yani first post the past waxa ku dhaqma dawladda degan Ingiriiska kala kamid ah oo boqolaal sano ku dhaqmayay oo heer sare ah oo aan shida ka jireen laakiin sidan muxuu ahaayay anagu aan u sameeynay waa xal see ku tahay hadii closed list la yiraahdo waa xisbi horta arinta doorashadu waa xisbi ma 4.5 iyo qabiil iyo hebel ma marka closed list waxay imanaysaa in xisbi la doorto xigmadda ku jirta maxay qabyaaladii waa ku baaba'aysa anu waxaan rabaa xisbiga aan ku jiro in baydhabo laga doorto oo Kismaayo laga doorto oo Gaalkacyo laga doorto oo Hargeysa laga doorto oo ma garanaysaa laakiin hadii la yiraahdo waxaad ku xadadan tahay liiskuna waa cad yahay waa makshuuf adiguna xisbigaas aad madax ka tahay marka qof iyo baa la dooranayaa magac xisbi la dooran maayo dhibaatada inoo keenayso waxaan kobcinaynaa qabiilkii wali qabiilka waa inaan guuro waa kobcinaynaa waa sii kobcinaynaa isaga baan sharci ka sameeyay awal baa bala naga raacday kobcintiisi marka inaan hadda sii bumbuurno sii kobcino waxay ila tahay mas'uuliyadaas ma qaadi karno hadaynu nahay barlamaanka tobnaad horta ma toban baynu ahay 9 baynu ahay